qaybtan aan ka hadlayno waxaa la yiraahdaa post baan hore uga hadalnay the power of 3 power of 3 wax kasta oo aad ka hadlayso inaad 3 kaasho why 3 points ay muhiim u tahay saddex waxyaalood u tahay muhiim number 1 markaad wax ka hadlayso inaad 3 points ka dhigto ma badna wixii it's not a lot oo dadku ay ku wareeraan ma yaro wixii oo hal xaba ma aha wax dadkuna xasuusan kara way 1 2 or 3 saas ma kan koobaad iyo mid ka dhexe iyo kan ugu dambeeya maanta waxaan rabaa in la ilo wadaago the first and the middle and the last markaad qofka ku dhahdo 3 points ki uu fahmaya saas ay darteeda waxay muhiim ku tahay conversation kasta iyo macna kasto dadka aad la wadaagayso inaad isticmaasho 3 points kaas why number 1 isn't easy to remember ma aha wax fara badan oo ku wareerinaya ama aad u baahan tahay inaad samayso you use your topics kaaga ama aad u isticmaalayso sida 3 points kaasu aad u kala shaandeynayso ama ay u kala horeeyaan number 1 marka waxaad u baahan tahay inaad ogsoon tahay 3 points waa easy pick up ka 3 points kana inaad ku soo celiso oo ku soo aruuriso hadalkaaga iyo speech kaaga dheeraa inaad saddex waxyaalood ku soo xasuusato waxay dhigi jireen markaan speech ka baranaynay 3 points ku waa mainka guriga aad dhisayso waa dhagaxa uu gurigu ku taagan yahay ama foundationka uu ku taagan yahay ama tiirarka uu ku taagan yahay the rest of your speech kaagana waa shamiitadii iyo ciidii iyo biyihii la isku daray oo ka dhigaya guri ama ka dhigaya inuu taagnaado and that is the reason kay muhiimka ugu tahay number 1 isn't easy to remember number 2 is the 3 points ka inaad ku shaandhayso ama ku soo celiso waxa rabto inaad ka hadasho and inaad u kala hormariso sida ay u muhiimsan yihiin oo kan ugu dambeeya aad ka dhigtaan kan ugu